waxaan ka soo bilaabaynaa deganaansho siyaasadeed aan ka bilowno haddaysan jirin xasilooni siyaasadeed mainly waxaan ka hadlaynaa waa inaan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe madaxdoodu waa inuusan khilaaf ka dhex jirin waa inaysan jirin madaxweyne iyo prime ministers haysta waa inaysan jirin guddoomiye baarlamaan iyo prime ministers haysto waa inaysan jirin dowlad goboleedyo iyo dowlad dhexe wax la yidhaahdo is haysta waa in la waayaa intaas markay dhacdo waxaa abuurmaya waa inaysan jirin dowlad soomaaliyeed oo caalamka dowlad ka mida la dirirayso waa in la waayaa cid adduunka ka mid aysan la dirirayna ma jirto cid gaar noolena ma jirto waa inaan dhahnaa dowlad marka waxaan nahay xora oo tabar daran sidaa darteed cid kasta waa u baahan nahay cid aan gaar ugu xihan nahayna ma jirto marka adduunka col lama lihin soomaalina col ma aha waxaan rabnaa marka dadka soomaaliyeedna inay heshiiyaan caalamkana ay la heshiiyaan siyaasiyiintu halka aan ka bilowno intaa marka ka dhaxaysa annaga waxaan rabnaa marka in la mobilize gareeyo bulshada waa in la wacyigeliyaa waa inaan isu nimaadnaa oon tashanaa si rasmi a u tashanaa oo aan dhahnaa seen cayayaanka nimankan seen isu dhaafinaa waa inaan isla soo wada gaadhno oo cashirku isku meel inoo joogo waa inaan aaminsannahay inaynaan hal tallaabo oo horumara qaadi karin wax service inay dowladdu samayn karin xataa dad inaan la caawin karin haddaan amniga la sugin amni keliya maaha nimanka haddaan la tirtirin oo la isdhaafin wax aan qaban karna ma jirto waxba ma qaban karno haddayna amniga sugin amniga marka waxaan ku sugi karnaa inaan kulligeen inaan amniga ka shaqo meesha gabadha soomaaliyeed marka looga baahan yahay meeshaas waay waxaan rabnaa shacab culimadii iyo ganacsatadii iyo gabdhihii soomaaliyeed ya qaybahoodii kala duwanaa ardaydii cid waliba inay dagaalkaas gasho oo intaan tashanno aan dhaqaaqnaan rabnaa oo magaaladan muqdisho amnigana waa shaqeynayaan strategina waa la keeni doonaa laakiin magaaladan waxaan rabnaa sideedaba ayada bal inta kale aynoo dambayso qolof weyn baa saaran oo la leeyahay waa nabad dowladdii way joogtaa qolofkaa hoostiisana dixiriyadii iyo qashinkii iyo wixii o dhan waxaan rabnaa marka inaan kaa ka faydno oo aan dhahno kan ha laga soo qufo kana ha la nadiifiyo waxa la nadiifiyo marka waxaan rabnaa inaan isugu tagno oo aan magaaladeena nadiifsano oo meeshaan rabnaa aan degi karno kow inaan nimankaa isdhaafino oo ciribtirno oo la waayo oo askari aan gabar weligiisba wiil soomaaliyeed ma guulaysan haddaan gabar soomaaliyeed biyo iyo cunto ka dabawday weligiis ma guulaysan hadda tusaalaha hadda cusub waxaa waaye deegaankan hadda dariskaana soomaalida waa ogtihiin weerar baa lagu qaaday sooma weerar baa lagu qaaday dhowr beri ay kusoo afjareen kuwii ugu darnaa sababta ma taqaanaa sababta waxaa waaye gabdhihii soomaaliyeed ee carigaa joogay from jigjiga ayaa soo gurmaday waxaa waaye meel kasta waxay ka sameeyeen station ay ku aruuriyaan cuntada iyo biyaha iyo baabuurta xataa shacabka laga soo qaadayo oo lagu gurayo oo lagu geynayo dee wiilashii marka ayagoo markiiba way derdereenba nimankiiba waa soo afjareen already meeshii waxaasna waxaa waaye taageerada bulshada iyo shacabka waaye marka aniga waxaan qabaa idinkoo aada u mahadsan gabdhaha soomaaliyed madaxay noo saaran yihiin wasiiradana way ku jiraan ilaahay idankiis kootadaas wax ka fiicanna way gaari doonaan waana waajib gabdhaha soomaaliyeed in prioritieskay leeyihiin iyo waxa ay mudan yihiin in la mariyo waa idinla qabaa dowladda programka way keeni doontaa way ka shaqayn doontaa bulshada laga shaqayn doonaa waxaan rabaa inaad diyaar garowdaan waxaan rabaa in dagaalkaas loo diyaar garoobo culus ee soo socda